السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين سلامي دمانتينا ميل والبا دونيد كجوجتان كسو دوادا muuqaal cusub maanta waxaan idin share gareyn doonaa insha Allah saliid timaha u wanaagsan tintaada ka dhigayso mid caafimaad qabkeeda aad u wanaagsan sidoo kale waxay ka hortagaysaa dandruufka timaha bixinin timaha waxay kaaga dhigaysaa kuwa jilicsan oo qurux badan oo shining ah insha Allah routiinkan idin kula share gareyn doonaa daawashada hadda gabadheeda 6 qayb uga soo dhigay kadibna waxaan u marinayaa saliid oo flaxseed ah saliidda flaxseedka waxay ka caawinaysaa timaha inay ka saarto dandruufka sidoo kale tinta waxay ka dhigaysaa mid quwad leh oo qurux badan ma sha Allah aadan ku cajabin doontaa haddii aad isticmaashid waxa ku soo shubtay caaga yarka oo loogu talagalay saliidaha ama sprayada in lagu marsado caaga inaad ku marsatid muhiim ah gacmaha xataa waa ku marsan kartaa sidoo kale saliidda waxay ka dhigaysaa timahaaga kuwa strong ah aan go'eynin waxay kaloo ka caawinaysaa inaad timihii dhalaal siiso ee ku qurxiso ku madoobayso ma sha Allah waxayna ka hortagaysaa saliidda mar walba aad ku dadaashid timahaaga amarisid cirada soo degdegto way ka hortagaysaa dad waxaa jira saliidaha carfaya isticmaala saliidaha carfaya uma wanaagsana timaha sababtoo ah tinta wuu jaraya mar walba aad saliid marsanaysid tintaada ku masaaj garay ama maskaat ha ahaado sababtoo ah waxay ka caawinaysaa wareegga dhiigga inuu si fiican u shaqeeyo markaasna wax walba amarsid wuxuu ku noqonayaa mid asxaabteeda qaaliga aad kaga mahadcelinaya sida quruxda badan aad u soo dhaweyseen YouTube channelkayga aad u soo booqateen haddii aad hore u soo booqan YouTube channelkayga magaciisa waxaa ku soo qorayaa qaybta shaashada insha Allah soo booqo channelka wax badan ka faa'iidi doonta wixii su'aal ah qabtana qaybta commentiga noogu reeb oo ku maasantahay sida quruxda badan aad noogu xiran tahay mar walba aad noo taageerto waa kaaga mahadcelinaya haddii aad taamar kugu horeysa aad daawanayso muuqaaladeena fadlan like noo saar siina share garay oo la wadaag walaalaha kale aad iyo aad u maasan tahay saliidda kooska sidaas ku soo wada dhameynaa insha Allah saliidan ugu soo wada marinaya routiinkeena maanta wuxuu ka hadlayaa saliidaha iyo waxtarkeeda iyo saliidda u fiican timaha insha Allah inay ka faa'iideen wax cunna waa rajeynaya dhamaantiina aadna ku qasaarin daawashada muuqaalkan aad daabatay insha Allah haddii aad taamar kugu horeysa aad soo booqatay Facebook page-keena fadlan follow garay sidoo kale muuqaalka like noo saar siina share garay oo la wadaag walaalaha kale haddii aad naga daawanayso YouTube channelkeena subscribe saar gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto asxaabta ku xiran simsimsiman haddaa hore noola joogtay aad u mahadsan tahay muuqaalka like noo saar siina share garay oo la wadaag asxaabtaada kale sida uga faa'iideystaan saliidan aad ay idin anfacaysaa gabdhaha ka cabanayo daadashada timo go'a sidoo kale dandruufka ama agoolka tintaada afalaaq haddii aad ka cabanayso adeeg haddii aad ka dareentay way kuu jilcinaysaa saliidan lambarka ka heli kartaan qaybta commentiga ayaa kusoo qoraya maadaama gabdho badan ay dhaheen meesha wax lagala xiriira alaabaha laga helayo nala wadaag marka insha Allah qaybta commentiga ayaa lambarka kusoo dhigaya lambarkaas kala xiriira wixii faahfaahin ah meel walba aad joogtaanna waad heli kartaan saliidan insha Allah saliid markaas sidaan u isticmaashid ama si fiican timahaaga ugu masaaj garaysid waxaa muhiim ah timahaaga inaad ka soo dhaqdo sababtoo ah tinta waxay xiraysaa dulduleelka ay timaha ka soo baxayeen haddii aad ku dhaaftid saliidan caadin waa loo marsan karaa sidoo kalena maaskaad ahaanna waad u marsan kartaa labadaba way ka anfacaysaa ma sha Allah tintaadan way ku qurxinaysaa tinta markii aad marisid aad ku duuduubtid waxaa ku joogaysaa 4 saacadood ilaa 5 saacadood kadibna waad ka soo dhaqaysaa shampoo ama conditioner ayaa isticmaalaysaa dan tintaada sida ku soo baxdo adiga la cajabi doono quruxda iyo shacniga ee ku siiso insha Allah saliidana mar walba way fiican tahay timaha in loogu dadaalo saliidda isbuuci hal maalin timahaaga mari si ay tintaada u qoydo hydrationka iyo aad u kicinaysaa saliid tintaada marka isbuuci sidaan u marisid tintaadana waxay ka dhigaysaa midaan lahayn dandruuf timaha qaleelka iyo agoolka sababa in lagu arko ama waxyaabaha cadcadka ee salka hoose ka soo fuqaaya insha Allah waxa kale oo soo hadli doonaa shaambooyinka timaha u wanaagsan sida gabdho badan ay codsadeen inaan ka soo hadlo jadwalkeena maanta waxaan kula share gareynayaa saliidda u wanaagsan timaha ma sha Allah sidaas quruxda badan ku soo dhameeyay marka 4 saac kadib ayaa isku soo laabanayna ma sha Allah gabadheeda marka timihii ka soo dhaqay sidaas quruxda badan ay ugu soo baxeen mar walba tintaada aad ku dadaashid moor timahaaga ay ku baxaan insha Allah gabadheedana aad ay u timo badan tahay Allah u barakeeyo inta haysan Allah siiyo Allahumma amiin gunaanadka muuqaalka aad soo gaartay waa kaaga mahadcelinayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh